بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت أسيين أنت شقاقة بردة لك دمتي لما أنت أسيين وللنا ولا بردة لك دي ولا أنكهم نو هرين إنشاقني سيجار إسجود أمي إنشاق دونا دقني إنشاقني meeliye hata marahayto oo miisheeda deegaankaasi miisheedo hal shay marahayona meel oo lafta garaan iyo nahay adeershaygeeka barafka marahayo meeliyo fadaayanga marahayt in dadkaas lamana iska dira in dadkaas miisheedo la barakay muddo oo miisheedo yalla ku shaqeey waana meeliyo fadaayanga marahayt marka wali fadaane dadka deegaankaasi miisheedo roog ini oo deegaan lislii dad miisheedo inshal guurana hata geeka wali dhimaday meeliyeeda dad oo miisheedo isku horkoysan dhimaday laakiin reer koonfur galbeed ama dadka wala miisheedo damiirka le wali ogina lafta gareen miisheedo Hussein Beeke amiya Hasan Nuur Manshal ka faraxsan dhimashadii ka faraxsan isigna may leeynaha hebelo miisheedo shalay oo horkooya dili kan adamiisheedo dilahayt ikan lamada isdilahayn in adeero aan waliba miisheedo wali sigaar miisheedo reer bardaalada kawaaniyay nimiyo shaqaaqadu umadilaha suubiyay oo la agaasimay muddo ku roog marka una tan hata lafta garan una ka shaltabniyahayt wali arnay miisheedo deegaankaasi dadkii doorasho miisheedo xilligaas xillo oo muddo sanad iyo wala ku roogahayti lanka madaasay roogi waqtigii dhamaaday wali arnay sida deegaamada miisheedo koonfur galbeed markaas may doorasho ka dhiiday qudura doorasho ka dhiiday wali arnay deegaanku dadkii walan joobow muhiim miisheedo ma fayle wali arnay dadkaas hofadaas langaar la jar korta si hoosadan joorniyata laakiin wali arnay dadku xorriyad siin dareeman doorasho ka dhiiday deegaankaas wali been badan marxaat badisada la reeyay wali isla jarnay xildhibaan federal maxaa uu kuraas jarnay ugaaskaas jarnay wasiirka arrimaha gudaha markaas naftiis walanay la qabay xildhibaanada koonfur galbeed isla jarnay insaani Abdaasiis markaas ba wali nin eday in meeliyeeda doorasho ma banka dhiyaan marka walaagiisu markaas hamiin usugu ninga ilaamilay meel ka dhiyan hata degmadaas inaan hoosan degan ma fadana laakiin wali ahaan walni iga sabaha degmadaas saacadun wali gadoomi ka elan Abdaasiis in adeershiye tali saldhig wali ka elan Abdaasiis in adeershiye wali ahaan gadoomi ku higeenka amniga siyaasadda lan in adeershiye la kawaali hatta wali shaku simu wali le usi meel dadka hebelo hadil hebelo hire saweela lan ka leew saldhigana miisheedo uslan sujeeysidiyo berdaal maalintii miisheedo maamul la dhisay la reedatun dad la xadameeyay ka dhimatay wali jidita miinan lanka dhiki iyo nahay wali miisheedo magaaladaas dhatel ka dil marka una wali sheegane wali buwaane codsadaana an kanag nagaana dadka deegaankaas an sheegane lafta gareen walaagi usmuddo ka taamay oo weydiyay oo raadiyay ini la olaaw ini listile yamiisheedo raadiyay arintan suurta gali namiyo warisan laha arintaasay hormar masheenas lankaad aawshay dilay unije oo wantay hayta bara adeera kali wali aha meel shal guurow mala wala hata la ilaamay wal faylama una wali aha ku hiraasan lana tan lamaad deegaankaasi miisheedo deegaan koonfur galbeed guud ahaan tismiisheedo horaanbaad ku hadalay wala ku dareergeek wal argahay warniyoolay wal argahay wal oo laagaasimahayo hata amniye la sugaale war miisheedo meel bay dhow 5 kilometer injarto shabaab roog waliba lafta garan degmo goonu laakiin deegaan hatta shabaab lagu huray male marka wali arfadna miisheedo nimiyow lafta garan miisheedo una 24 saac dhibaatadiis social media meel kasta walka sheegay laakiin lan qaadado gordon way ana aragtadan iyo nahay akhyaarti miisheedo oo mareed miisheedo warkay la qaba salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh